مدوبا حدومان كل بيا هاي تدكم ولا ما يشي السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هانتينا كسو دوادا جانل كينا كحروف فقريقا هادو eebaweyne idma maanta waxaan ka hadli doonaa labo ciwaan oo muhiim u ah beeralaydeena. Waa maxay xirfadaha ugu muhiimsan ee laga rabo in uu barto qofka beeralayda ah? 5 faa'iido oo laga dhaxli karo haddii si hab casri ah loo kaydiyo abuurka, iyo faa'iidooyinka ugu weyn ay leedahay kaydinta abuurka. Waxaan gunta hoose u geli doonaa ciwaanka ugu horeeya. Waa maxay xirfadaha ugu muhiimsan ee laga rabo in uu barto qofka beeralayda ah? Xirfadaha ugu muhiimsan ee beeralaydu laga rabo waxaa ka mid ah barashada qaababka casriga ah ee abuurka loo kaydiyo si ay wax ugu tarto wax soo saarka dalagyada oo beeralayda rabo in uu tabco. Fiirso, qof walba inta uu qofka kale ka abuur fiican yahay waa ka wax soo saar badan yahay. Sidaa darteed, beeralayda waa in ay fiiro dheeri ah siiyaan kaydinta abuurka. Beeralaydu waxa ay awoodaan in ay kor u qaadaan tayada abuurkooda si sanad walba. Taasina waxa ay ku dhici kartaa iyaga oo aan waxba kordhin dakhliga sida bakteeriyada, waraabka ama hab tacabka. Inkastoo xanaaneyn dheeri ah oo yar ay u baahan tahay soo saaritaanka abuurka, beeralaydu waxa ay awoodaan in si fudud ku kordhin karaan wax soo saarka beertooda. Qaybteena labaad, 5 faa'iido laga dhaxli karo haddii si casri ah abuurka loo kaydiyo. 1. In aan helno abuur aan u baahannahay waqti ku habboon. 2. In aan kaydsano beeralayda lacagta ugu baxaysa soo gaadhista abuurka. 3. In ay ku kalsoonaadaan noocyada abuurkooda oo midka kaliya ee la doonayo. 4. In ay soo saaraan abuur la qabsan kara cimilada iyo carrada deegaankooda. 5. Waxay kordhinaysaa dakhliga ka imaanaya kheyraadka deegaanka. Qaybta saddexaad, faa'iidooyinka ugu weyn ee leedahay kaydinta abuurka. Beeralayda badani waxay haysato dhibaato weyn kaasi oo abuurka ama ma awoodaan in ay helaan abuur fiican oo nadiif ah. Waxaa aad muhiim u ah in ay kaydsadaan abuurka deegaankooda iyo abuurka dhaqameedka kala gedisan oo nadiif ah lehna tayo wanaagsan. Inkastoo ay u baahan karaan isku talaal iyo in ay kordhiyaan noocyada cusub oo si furan isugu faxli karo. Si loo hubiyo abuurka tayada fiican, waxaa loo baahan yahay in loo isticmaalo habab fiican, laakiin faa'iido ugu weyn ay kaydashada abuurka waxa ay ka caawinaysaa beeralayda in ay gaaraan isku filnaansho dheeri ah. Intaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii. In kulanka mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah. Hanaga hilmaamin share, commentiga iyo subscribe-ka waxay inoo tahay dhiirigelin.